horta geeridu waa xaq. qof walba waa uu dhimanayaa. qof walba waa uu dhimanayaa. abbaayo anigu waa la dareemaa aabbaan ahay. awlaad baa ii joogta. ilaahay horta ha u naxariisto awlaaddeeda oo dhimatay ama wiilkeeda oo dhintay, ma fahantay? laakiin asad, adiga mid waa inaad qaadataa mas-uuliyaddeeda. middaas oo ah in aadan booqan. taas waa mistake. bini'aadanaana tahay. qof bini'aadan qofka bini'aadanka ah ma og tahay perfect maaha. perfect maahan in aadan booqan intaas oo aadan isbitaalka. taas midaa ka hadlaa. macnaha waxaan ula jeedaa dad hadday saas ila rabeen inaan yani dhulka liigiyo ama washamsi liigu qaado, stiil booskaygaa taaganahay. haddii washamsi laisku qaadane inta muuqaalka daawata dhan hal mar wada bixleed. sax ma fahantay? marka waxa waaye ayaan la degdegin, waxa la hubsado. arrinkan waxaa la taagan yahay xil laisku ducayn lahaa, xil walaasheen niid loo dhis lahaa la taagan yahay. yani in lasii khasab ma ahaba. sax waaye. marka go-aanka usoo galne yaa sababtaas waaye. soomaaliya waad maqlaysaan ninka siduu leeyahay. hadda markii aan ku soo wacay, dad badanaa waxay ugu dhaheen commentiga asad isbitaalku ma jiro oo waa fake. ma fahantay? waxyaabaha aad diidanaa inaa kasoo hadlaa taase kaameradii aad boorso wataa igama harto. ma fahantay? haddaa soo hadlo oon arrinkaas ma jiro lii dhaho waxaana isdilmoa in lii dhaha diidaa. xaaladii caafimaad ana og. ma fahmay? marka waxa waaye youtube-kaas aka maqanaya uma maqnina wax kale uguma maqniye. yani awood aa yeelan waay darteeda uga maqanaya maahane. alxamdulilah maskaxdeeda iyo idgeyga iyo wixii aan ku socdo dhan notiskeyga waa ii qorshaysan yahay. waa gartay. marka waa sax. horta asadow, wax haddii ay dhacaan ama qalad oo dhaco kale, soomaalidu waxay dhahdaa sidee loo xaliyaa. ma fahantay? hadaayi aniga yacquub waa soo galay lifeka, waa uu soo qabsaday. horta geeridu waa xaq. qof walba waa uu dhimanayaa. qof walba waa uu dhimanayaa. abbaayo anigu waa la dareemaa aabbaan ahay. awlaad baa ii joogta. ilaahay horta ha u naxariisto awlaaddeeda oo dhimatay ama wiilkeeda oo dhintay, ma fahantay? laakiin asad, adiga mid waa inaad qaadataa mas-uuliyaddeeda. middaas oo ah in aadan booqan. taas waa mistake. bini'aadanaana tahay. qofka bini'aadanka ah ma og tahay perfect maaha. perfect maahan in aadan booqan intaas oo aadan isbitaalka. taas midaa ka hadlaa. wiil oo waxaa jira isagana hadda dhow geeriyooda, ilaah u naxariisto. isla seem yani haddaa aragtin kalmooge, yani youtube-kiyaa 3 jeer 4 jeer kasoo hadlay oo la caawinayo. cudurka ku weynaaday. sidoo kale waan isku fiicneen, cid ka warhaysa ma lahan. uu geeriyooday, alxamdulilah tiraba umaad, ilaah u naxariisto. markaasaa waxaa dhacday meeluu duugi meel kale xitaa dadka xaafadda xitaa may soo ogeen. dadka social media iska daaya. ma fahanti? marka markii la duugayay waktiga galabtaa laiskuula heshiiyey, laakiin way kasoo hormartay duhurtii la dhahay. duhurtii camalaa la duugaa la dhahay. marka dadka qaar dhalinyartii way isku fiicnaayeen, yani hebel ma kasoo qaybgelin, hebel ma kasoo qaybgelin, aa laysku qabsay. marka tanne waxay la mid tahay, yani layskama warhayo inaan gabadhaas u tacsiyey iyo in kale cid og ma laha. soomaalidana waxay rabaan inaan video ka duubo, baayo ilaah u naxariisto aan ka dhadhaho, saasay ku qancayaan. ma fahanti? markaan u tacsiyeyna yani anayba xaaladii xaal ahayd. mana jir lahayn bataa inaan video kasoo duubo, sababtoo ah qof dhibaataysan xanuunsan oo xaalkeed ilaa og ahaa. ma fahmay? marka waxaan halka rabo waxay tahay
meel aan og ta'siina iyo meel aan og tagay iyo meel aan wax inaa wax dhan la bayaanayo sidaa sheegtaba ayagu inta badan ama dadka ma og tahay horta dadkan Soomaaliyeed asadow macnaha markii laga hadlayo youtuber macnaha adiga waxaa tahay people choice youtuberka ugu jecel yahay horta moogta youtuber waa ahay youtubera kale waa jiraan laakiin youtuber markii la dhaho saaxiibow YouTube ninka loogu jecel yahay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan Asad Xaajiyo lagama maro xitaa markii isbarbardhig la sameynayo oo kale Asad Xaajiyo iyo YouTuber hebel oo kale markii la dhaho 99% dadku adeeg ku doortaan macnaha masha Allah thank you marka dadkii sidaas ahay ba marka hadda waxay maaragtay ka caawdeen ama ay maaragtay ka kaceen in adiga aad gabadhaas Soomaaliyeed oo walaasha ah waadna noo sheegtay waadna noo sharaxday asadow aniga mid oo kugu cudur daara saaxiib hadda ina isbitaal ku jirto cudur daara igana raali noqo inaan marabin taas laakiin waa runta in la sheego iska fiican tahay waxaan kugu cudur daara waxaa waaye asadow nin boodi kara maantay oo ordi karo ma tihid inaan ku dhahana ma jeclaysan iga raali noqo labadaas ma fahmi baraadey dadku waa inay taas fahmaan ma garad saaxiibo adii sidaas sheegto waaye markaad bixayso walaalka kaaweyn Xaajiyo asna magaciis muxuu arrimahana maaka kale Cabdullaahi labadooda inaa mid israacdiin waa soo ma marka meel aadaysiin inta badan marka waxyaabo badan oo lagu cudur daari karaa marka anyway bro waxa waaye dadka Soomaaliyeedna waxaan rajeynayaa inay maaragtay fahmeen sida ay wax u jiraan ninkaasna hadda ku jira waad aragtaan marka dajiya gabadhaas walaalkeen ahane in aniga ilaa Asad dhammaan Soomaaliya oo dhan caawinaad nooga baahan tahay hadday subscribe noqoto social media hadday TikTok noqoto any platform oo social media waa ku soo dhaweynayna ma fahanti si fiican marka waa kaas asadow ma dib ma lahan waxa waaye kulay halisoo duceeyo ku dhaha wixii kale oo aad iga aaminsan tahay labada ahaata xumaan iga aaminsanaaw ama wanaag iga aaminsanaaw waxaad iga aaminsan tahay waa kugu taageeraa because adaa iga aaminsan ma fahmay marka waxa waaye haddaad xumaan iga aaminsan tahayne isoo duceey haddaad wanaag iga aaminsan tahayne isoo duceey waxyaabaha aan diidanaa inaan anoo isbitaal ku jiro waxaa ka mid ah yacni dadku wax hadda ay soo qorayaan waxay soo qorayaan waa wax ay qofka ay ku dhibayaan laakiin kulay waxaas hadda uma joogaane waxaasna inaan ka hadlo insha Allah awood ilaahay isiyey hadduu ilaahay awood isiiyo oo sidii hore aan ka fiicnaado oo kasto insha Allah oo leeyga sii wadanaa ayuu badagan oo ku salaamaa iyo asxaabta yani wax ka qarsaneed igana waan salaamaa insha Allah hadalkii ugu dambeeyo oo aan idin dhahay waxa waaye insha Allah aan isku soo duceeyo brother ilaahay caafimaad ha ku siiyo ilaahay caafimaad ha ku siiyo qalliinka aad sugaysane ilaahay ha kuu fududeeyo marka waxaan ku leeyahay guulayso hore u soco insha Allah ween wanaagsan brother ma fahanti ana haweeney ii tahay guulayso Asad Xaajiyo insha Allah ayo raajay khayra ku dhaaf